anigu ma jeerteen baan Umar Maxamuud oo ka socda dalka Itoobiya oo u lugaynaya laamiga Barbara 7 maalmood iyo badbaan yaan socota ku hayaan وصلتين ديمو بربادي وصل waxaan ka imid tuulo leeyda garawa gaar mulataay degmadeedu ay gaar mulataay tahay urta madoob ee Soomaalida u taqaana dadkani waxay isugu jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada rag dhalinyaro odayaal haween iyo caruur waxa ay socod luga kaga yimaadeen gobolka Oromada ee dalka Itoobiya waxa socdaalkoodan lagu qiyaasaa ku dhawaad 2,000 oo kiiloomitir tahriibayaashan Oromada ayaa inta ay ku guda jiraan socdaalkoodan lugta waxa soo wajaha dhibaatooyin isugu jira gaajo iyo haraad mararka qaar koodna ay ku adkaato inay gaadhaan halkii ay doonayeen waxay isugu jiraan oo dad yar caruurtii wax walba way sida dumarkii qaar baa xitaa xaafadaha yiri gogol la siiya oo waa nus qabnaa qaar wata laba dumar laba islaamood ayaa xitaa maray dad weyn baad arkaysaa oo waayeela waxaad arkaysaa dumar ku jira mararka qaar waxaad arkaysaa nooc walba qaar laangala jiisaad arkaysaa nooc walba arkaysaa wanaadar dhibaataysan oo wadada bacadka ama xeebtaad aragtay kulul birbiro dhaxaysa yeerkiisa dhaxaysa marka la dhaafo xamaas wixii ka sheego kuleel magaraas wad ku arkaysaa imka ku inta jifanta badan aragnaba ka ciid cunayay inaan kii sidee xitaa waxa lagu waa lagu qabsan doona xaggan waadigan xaggan baad ka soo qaaday ninkaasi hadii imka waadiga wax kugu sii noqdo oo ama gaariga dhexdiisa ba ku sii baqtiyo iska dhigmaabay dadku ku dhahay laakiin wuxuu dhigi maayo hor ilaahay baan soo qaado kiyo ciid cunaya oo dhinacna ka shahaadanaya ka habaabto magaalada ka sokaysa ayuu shalay yiri waan ka soo qaad ilaahay dartiina waanu sidaayo gabdad xulay buu ka iibsaday halka saasoo ku qaadayo salaadii duhur buu nugula tukaday masaajid inta ugu badan dadkan socdaalaya intee bay xadigoodu leeyihiin xadigoodu wuxuu leeyahay maalmaha qalbay 60 dhow annagana hormaraa 60 ugu yaraan baan hormara maalmaha qaar maalmahan waxba marin waa maalmaha suudiniyadu marayso mid labaad xagga hore xagga dambe way maraa magaalada dhabarkeedana way maraa horteedana way maraya marka kuwa dhabarkeeda maraya waxaan silmada waa kuwa shilmada yar sitayo ee dadka ka yara dhacayade ya qonay ma soo maraa oo cunto doonaya iyo hay cunaan marka waxaan ku leeyahay dad dhibaataysan weeyaan dadkaas maxaad ku aragtay dhibaato noocay markaan wallahi dad iska jilicsan oo radana gaajonayo haraadsan iska baanbasan weeyaan wadayla Itoobiya la ka soo lugay qof lugayna la garanayaa dad aan soconayno daalan weeyaan marka ay idin soo gaaraan tuuladiinan waxa ugu horeeya ay idin weydiistaan ama kaalmada ugu horeeya ay ka dalbadaan maxay dalbadaan intii biyo naga dalbadaan tahriibayaashan halista inta leeg u galiyay naftooda ayaa waxa ay u qaybsamaan kuwa socodkooda si wata ilaa inta ay ka gaadhayaan wadamada Carabta kuwa kalena waa kuwa shaqo raadisa halka inta soo hadhayna inta badan lagu arko dariiqyada waaweyn ee magaalooyinka iyagoo dawarsanaya tindimu barbaadi وصل waxaan ka imid tuulo leeyda garawa gaar mulataay degmadeedu ay gaar mulataay tahay urta madoob ee Soomaalida u taqaana Soomaaliid garan imika boosaasan u socdaa buu dajitan teetira biyatan teetira maaltu sifide rakina rakon jiraji wata kallen qabno miskiinu maanu jira waan takalle oo miskiinu maanu jira sani akati foyo barbaada sadaqa khalatu abdeema wuxuu yidhi wax la'aan baa iyay wada buu kolka dadkan inaan sadaqaysto oo inaan u socdo ilaa boosaaso aan u soo lugeeyay buu ku leeyahay dawarsi buu socdaa tahriibayaashan ayaa waxaa mamnuuc amba sharci daro ah in gaadiidka dadweynuhu qaadaan balse taa beddelkeeda haddii ay lugeynayaan wax dembi ama laha waxa kaliya ay iska ilaaliyaan waa buraha kantaroolada ay ciidamadu joogaan wallahi anagu dadka dhibaatada ugu badan ee aanu kala kulanaa waxa weeyaan haddii in kala qof adar Ilaahay u qaato kantaroolka ugu horeeya ee aad istaagto ayaa laga yaabaa inuu kuba xidho ama lagu taadiyo oo lagu raad dadkan malacag baad ka soo qaadatay xaqad ka keentay hadday kantaroolka ag lugeynayaan oo ay marayaanna biyahaba loo darayaa haddii lagu xidhana baabuurkaaguna ganaax buu mutaysanayaa adiguna xarig baad mutaysanaysaa laakiin wallaahi isma lihin cid baa xil iska kin saaraysa ama dawlad ha noqoto ama shicib ha noqoto
midda kale waxaa jirta dee inay gaadiidka xataa marar u dhuman karaan way jirtaa midda nin ay ku dhacday saaxiib lahayna wuu jiraa oo intay u dhunteen kaantarool marka dambe lagu yiri kaantarool ka mid ah waa reedhaniyow waa dad boodiga sidee dadkan kale noo sii qaad lagu yiri ganaas kaasina way jirtaa oo yiri marka hore ma sidii ganaas dee waana u dhunteen halkaas sare u galaan ganaas gaariga dhikiisa marka niyow dadkan way dhibaataysiin dhibaato badan bay qabaano adarkaas iyagoo meel walba jiifayo meel walba gaajoonayo meel walba haraadano gabadhii baraya marka haddaba muhiimaddu waxay tahay inaan dee xuduudda la xidho ama la joojiyo oo dee dadkan dhibaataysan ama gaadiidkii loo fasaxde garanaysaa marka annagu intaasaan horta aragnaa mar walba ismila taagno dee sharci ahaanna dee mana qaadi karna garanaysa oo haddii aanu qaadno dee wala nagu qabsanayaaba dee doono garanaysa marka inuu dadkaasi dhibaato weyn bay qabaan safarkan dadyowgan ayaa iyagu uun dhib ku ahayn waxa uu sidoo kale walaac ku hayaa dadka ku nool deegaanada ay sii maraan mar waxaa la foolxun diifta saaran dadkan socotada ah iyo duruufta ku khasbaysa in ay sidan u safraan dhinaca kale waxay ka walaacsan yihiin dhibaato uga iman karta shakhsiyaadkan aan sharcigu meelba ku ogeyn way tababaran yihiinoo askar way ka soo yaaceen dagaaladii waa askarde way tababaran dad guryihii xitaa intay ku baydheen aqalada dhexdooda kuwa wax ku karsanaya iyagii siday ku ilaha yihiin hadda wallaahi ku ilaha inay yihiin bay wax ku dhex karsanayaan oo loogu yimiba shirikaamo bariis ku jirayoo la arkay iyagoo ka shubtay oo la sii socdo arrinta xiisaha leh ayaa qaar ka mida tahriibayaashan yihiin dad Soomaali ah odaygan oo magaciisa ku sheegay Xuseen Maxamed Saalax ayaa ka mid ah muhaajiriinta Itoobiyaanka ah ee safarka dhibta ku guda jira anigoo magacayga Xuseen Maxamed Saalax anigu ma jeerteen baana Umar Maxmuud oo reer Xirsi Axmed oo ka socda dalka Itoobiya oo u lugaynaya laamiga Barbara oo socda oo ka soo saameysay roob la'aan oo xooluhuna ay dhamaadeen oo markaa qaxooti aad iska lugaynayaan nahay waxaan anigu ka soo qahay meesha qurac mataanaha la yidhaahaa oo faafan bay ku xigtaa oo waraabaley baa la yidhaha degmadeeda waraabaley baan ka soo qahay faafan baan soo galay faafamna sidaa kadaaligeed oo biyaha weliba jijiga u siinaysa intaanan soo gaadhin adigu qabri bayax wixii ka soo biloobo 3 maalmood baan soo socotay ilaa wajaale markaan soo gaadhay wajaalana waxaan ka soo lugeeyey gabiley ku soo galay maalin baan ku soo galay gabiley ilaa wajaale kabacdi gabiley baan bariyey maalin bay igu soo qaadatay ilaa Hargeysa haddana 2 maalmood way hadduu gabigeedaba iyo 3 maalmood 5 maaha iyo 2 maalmood iyo 7 maalmood iyo baan iyaan socota ku hayaan aniga markaan u tago raashinka way siiyaan shahawa wixii ay ii kaalmin karaan cunna waa lay dhiiba miskiinkana de waa sidaydoo kale de waa nin islaam waan u yeeraa ila cunbaarda nasiib darro way adag tahay in ay dhowaan wax iska bedelaan xaaladda qalabsan ee muhaajiriinta iyo weliba walaacyada bulshooyinka deegaanadan dowladda Itoobiya oo dagaal sokeeye ka aloosan yahay ayaan u muuqan in ay xilligan mudnaanta siinayso wax ka qabashada duruufta khasabtay safaradan halista badan ku gadaaman yihiin Somaliland laftarkeeda ayaan muujinin wax dabacsanaan oo la xiriira fududeynta safarka dadkan socotada Xamse Xayd wararka lanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa